maalin wanaagsan saaxiibayaal waa markani wararkii warbixinada ugu xiisaha iyo xamaasada badnaa hadahan oo kale ay ka daawo jirteen Israac Media waxaa ka mid ah Burundi oo diidan in ciidamadeeda ka saarto Soomaaliya gudoomiye Mursal oo ka hadlay xalinta khilaafaadka guddiga maaliyadda xildhibaan Oduwa oo uu sheegay madaxweynaha shalay inuu Ruubo asaga siiyay baasaboor diblomaasi ay gaadiidka xabadda aan karin qodobadaasi iyo qodobo kale ah barnaamijkeena ku maqli doontaan hadduu ay beedmo dowladda Burundi ayaa diiday qorshaha ciidankooda ka jooga Soomaaliya looga saari lahaa kun askari kadib markii dalab uu ka yimid midowga Afrika wakaalada wararka AFP ayaa ka soo warantay in war qoraal ay ka soo saartay afayeenka militariga Burundi oo lagu magacaabo Fally Robert lagu sheegay in militariga dalkaasi ay dowladda Burundi weydiisan doonaan in si siman ciidamada loo saarayo lagu qaybiyo dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya halka ciidamada Burundi kaliya la saari lahaa sida u muuqata Burundi ayaa diidan in dalkooda kaliya ciidan ka socda laga saaro Soomaaliya waxayna muujinaysaa in ay ku qanacsan tahay in qorshahaasi lagu fuliyo dhammaan ciidamada hoggaanka AMISOM ka tirsan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xarunta Villa Hargeysa ee Muqdisho kula kulmay guddiga maaliyadda miisaaniyadda iyo qorsheynta golaha shacabka kulanka oo socday saacado badan ayaa waxaa looga hadlay sida loo xalin karo khilaafka xubnaha guddiga u dhaxeeya iyo sida ay ku wada shaqeyn karaan gudoomiyaha ayaa dhageystay talooyinka xubnaha guddiga maaliyadda ee kulanka ay ku soo bandhigeen xubnaha guddiga ayaa si wada jir ah u qiray in howlo badan ee guddiga u yaalo gudoomiyaha golaha shacabka xukuumadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in howlo muhiim ah ay guddiga u yaalaan loona baahan yahay in si degdeg ah loo qabto waad mahadsantihiin sida aad u qaabisheen una soo xadirteen kulanka degdeg ah aan isku keenyeeray ujeedada waxa uu ahaa in aan dhageysto talooyinkiina waana dhageystay waana fahmay in badan waxaan la soo tashan doonaa gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ayuu yiri gudoomiye Mursal xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay talaabadii lagu xiray Mukhtaar Robow oo Mansuur oo kamid ahaa musharaxiinta u tartamaya doorashada Koonfur Galbeed hadal uu saxaafadda Muqdisho sheegay ayuu xildhibaan Oduwa ku sheegay sida tan wixii mooshinka ku qoray oo ay ka mid ahaayeen madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsanay inuu carqaladeeyo kalana diro dhibaatooyin u geysto dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaa laga bilaabay Cali Cabdullaahi Cusable waxaa lagu xijiyay Xaaf waxaa lagu xijiyay Shariif Xasan inta dhimanna hadda loo socda madaxweynuhu meesha xasilooni siyaasadeed oo ka shaqeyn lahaa wuxuu ku mashquulsanay in nidaamkii federaalka ah ee dastuurka dalka asagana lagu soo doortay uu ka hortago burburiyana labadii sano la soo dhaafay madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsanay inuu weeraro siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdi Qaybdiid wuxuu jajuub iyo si sharci darro ah ugu gacan geliyay Ethiopia muwaadin Soomaaliyeed qalbi dhagax asagoo ilaa maanta aan ka cudur daaran asagay xukuumaddiisa waxaa xusid mudan haddii baarlamaanku waa diiday dabcan laakiin xukuumaddu ilaa maanta kama laaban madaxweynuhu wuxuu daraad soo afduubtay muwaadin Soomaaliyeed asoo ciidamo Ethiopian kaashanaya Abu Mansuur Robow oo asagu oo baasaboor diblomaasiye iyo baabuur tignika baydhabo ugu diray baabuur bullet proof kadib markii uu ka waayay wixii uu rabana uu ka soo afduubtay waxaa xusid mudan in madaxweynaha iyo xukuumadda la shaqeysa ay tahay markii koowaad oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la kala diro guddi baarlamaaniya ilaa 2000 waqtigii carta ee dimuqraadiyadda yarta waddanku ay ka soo haran qaaday ma dhicin in guddi baarlamaaniya loo kala diro shaqo uu qabto darteed madaxweynaha iyo xukuumadda ayagoo ka biyo diidan warbixintii corruption-ka ahayd iyo lacagihii maqnaa oo ay jawaabta wasiirka maaliyaddu ka bixi diiday baarlamaanka hortiisa meeshii ay ahayd inay jawaab ka bixiyaan waxay ku dhaqaaqeen inay waraaqado sharci darro ah oo gudoomiyaha dhabarkiisa laga diray ay ku soo direen inay dhaheen guddigii waa kala dirnay waxaad ka warhaysaan madaxweynaha dalka jooga madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisu waxay soo saareen wax la yiraahdo gariya gardarro taasoo aan sharciga waafaqsanayn taasoo ilaalintii madaxweynaha loo doortay dastuurka inuu ilaaliyo aan waafaqsanayn gar iyo gardarradaas waxaa xilka looga qaaday mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo ogtihiin ayadoo wax sharciya iyo wax kala dambeeyna aysan jirin
in loo adeegsaday awooddii dowladnimada laga watay ciidankii laga xirtay baarlamaankii xildhibaanadii oo taagtaaganna markii dambe madaxweynuhu uu warqad ka saxiixay habeen madow uu leeyahay xukunka waa inaad ka tagtaa halkaas iyadoo ay marayso madaxweynuhu guddoomiyihii asagu iyo xukuumaddiisa ay u ololanayeen markuu yimidna sidii oo kale ayay isugu dayeen inay u afduubaan baarlamaankii markuu guddoomiyihii ka diiday oo uu aqbali diidana waxay isku dayeen inay sii wadaan jajuubkoodii intaas markay arkeen xildhibaanada baarlamaanka ayay waxay soo gudbiyeen soo jeedin ku socota madaxweynaha ku socota guddoomiyaha baarlamaanka eedayn ku socota madaxweynaha iyo mooshinkaad maqasheen dad aad u badanaa loo sheegaa oo la yidhaahdaa mooshinka dana gaar ah laga lahay laakiin mooshinka waxaa lagu toosinayay xukuumadda iyo madaxweynaha mudane madaxweyne macnaheeda ma ahan maanta in mooshinkii dadkii keenay ay la laabteen inaad saxan tahay macnaheedu waxay tahay adigoo cidda u weynaay haddaad u turi weyda inaan annagu u turnaan garannay waxaan ku xasuusinaynaa inaad dalka iyo dadka badbaadisid inaad u soo jeesatid wixii dastuurka uu kuu diray inaada ku mashquulin ooda ka shaqaynin dana yaryar oo dowlad goboleedyada ood adiga isleedahay armaad ku seeta dheeraysataa waddankaanu meelo fogfogu ka yimid siduu hore uga sii soco lahaa mas-uuliyadu kaa saaran tahay fursadaan ku siinay welina isheennu waa soo taagan tahay waa mahadsantihiin